بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha inaga mudan ee Allahba ku xiran channelkan YouTube-ka Ismaaciil Aqida ku soo dhawaada barnaamijkeena insha Allah taala aan kaga hadalna Allahba nolosha saxaabada ka hor intaan barnaamijka gudagalin fadlan haddii nagu cusub tahay walaal channelka subscribe inoo saar si dhiirigelin ay nagu noqoto sidoo kale like ta saar barnaamijyadeena haddii aad ka heshay siina share gareysi dad kale ay ugu faa'iideystaan waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo baahino gambalaalka dhafuro si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo baahino qaybta koowaad insha Allah taala qayb ayaan u kala dhigi doonaa barnaamijyadeena waxaan ku soo qaadan doonaa qaybtan hadduu Rabbi weyna raali ka noqdo insha Allah taala saxaabiga Usama bin Zayd insha Allah taala waa sanadkii 6 ee hijriyada ka hor goobtuna waa magaalada Makka wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sheeganayay dhibaatooyin iyo hagardaamooyin ay kaga imaanayeen gaaladii Quraysh isaga iyo asxaabtiisa isagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqtigaasi ku hoolanaa gaarsiinta iyo fidinta dacwada islaamka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ku sugan xaaladaasi ayaa waxa soo gaaray war ka farxiyay waxa u yimid qof ugu bishaareynayay inay Ummu Ayman ay dhashay wiil dhalashada wiilkaasi ayaa waxa si aad ah ugu farxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyadoo ay wajigiisa si weyn u hareereysay farxadaasi talow uu noqon doonaa wiilkaasi nasiibka badan ee uu dhalashadiisa ku farxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam haddaba daawade halkan ayaad kaga bagan doontaa waa saxaabiga aan soo bandhigayno sheekadiisa waa saxaabiga la yiraahdo Usama bin Zayd ee loogu magac daray kii uu jeclaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabta lama ay yaabin sirta ka dambaysa ee keentay inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku farxo dhalashadii Usama bin Zayd maxaa yeelay waxay ogaayeen xiriirka qotada dheer ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee la wadaagay waalidka Usama hooyadii waxaa la yiraahdaa Barakatu al-Habasha looguna kunyoodo Ummu Ayman waxay adoon u ahayd Aamina bintu Wahab oo ahayd rasuulka sallallahu alayhi wasallam hooyadiisa kolkii ay dhibatayna hooyadiisa waxaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam barbaariyay Ummu Ayman iyadoo wanaajisay xanaaneynta rasuulka qaybtan insha Allah taala intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta qaybta xiga aynu ku kulmi doono amaana Allah